magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayna wasaaradda haweenka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxa ay ka hirgelisay xafiiskii ugu horeeyay oo wasaaraddaasi ay leedahay. Maxamed Aadan Socdaal ayaa mar kale warkan Baydhabo nooga soo diray. munaasabad maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Baay isla marxantaasna xiriga looga jarayay xafiiska ay yeelan doonto wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Baay. munaasabadaasi waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adda TIS mas'uuliyiin ka socday. ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda TIS oo ayagu maalgelinayay xafiiskaasi sheegayna in maanta laga bilaabo ay ku wareejinayaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. marka insha Allah ta'ala waan sii garab istaagi doonaa wax badan ida sheegtay hada kuma sii dheeraan insha Allah waxaan rajaynayaa in ka soo shaqeyno hadana xafiiska uu furan yahay waan soo qeyb doonaa insha Allah ta'ala wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo Binto Ibrahim Ali oo si rasmi ah xiriga uga jirtay xafiiskaasi ayaa iyaduna soo dhaweysay xafiiska maanta wasaaraddu la siiyay waxayna sheegtay in laga bilaabo maanta ay si rasmi ah wasaaraddu ay ugu shaqeyn doonto halkaasi. waxa farxad weyn oo ah in aan ka furno Koonfur Galbeed xafiiskii ugu horeeyay ay lahaayeen gabdhaha ku nool gobolka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo iyaga xaq u leeyihiin cidna ayna ku haysanin cidna ayna kula kulmi karin kula murmi karin. waxa farxad weyn ah in muddo ah ayaa gobolkan dhibaato iyo colaad badan uu soo maray si degdeg sida dhaqsiyaha badan ee xafiiska gabdhaha nasiibka ugu yeesheen inay ku shaqeystaan tababar lagu siiyo kulamo ku sameystaan isugu yimaadeen iyagana ay xor u yihiin ay gacanta ku haystaan cid kalena ay soo farigeli karin ayaan maanta farxad weyn noo ah furitaanka 13 bishii 2 ee Febraayo ayaa la furay taariikhda ayay galaysaa Koonfur Galbeedna waa guul u soo hoyatay gabdhaheeda waana soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaaya codka magaca gabdhaha Koonfur Galbeed aad ayaan u soo dhaweynaa waana ku faraxsanahay waxaana u sheegayaa gabdhaha wax kasta oo yimaada meeshan iyaga ayaa iska leh qalabka yaala gabdhaha iska leh waxa ku soo saacidi doona iyaga iska leh way badiyaan waxbay kordhiyaan waxbay faa'iideeyaan waxba munisqaamiyaan meeshii loo dhiibana inay dhalaaliyaan ee qurxiyaan ee hanti ka soo saaraan maahane wax la'aan ma yeelan marka waxaan adduunka u sheegaynaa Soomaali weyn u sheegaynaa reer Koonfur Galbeed u sheegaynaa gabdhaha Koonfur Galbeed ee ubaxa ay hadda soo baxaya ee nolosha cusub iyo iftiinka cusub qaadanaya inay maanta haystaan meel ay ku kulmi karaan. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa ka mid ah wasaaradaha xilligan uga shaqaha badan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxamed Aadan Socdaal, Jubaland TV, magaalada Baydhabo.